asalaamu calaykum dhabar asxaabta waa idin salaamay. Cashirkan waxaan ku baran doonaa sida kombiyuutarka window loogu bedelo. Hadda window 7 ayaa ku jiro, waxaan ku shubaynaa window 10. How to install window 10. Marka wax iska easy ah. Waa muhiim inaad haysato cajalka waa muhiim inaad haysato ama USB inaad haysatid. Labadaba waa u samayn kartaa haddaad USB haysatid. macnaa qaab kale loo raacana ayadan way jirtaa. Haddeertan waxaan haysanaa cajal kombiyuutarka waxaan sameynaynaa meesha cajalka ayaan soo furaynaa. Okay, marka meesha cajalka aan soo furno, cajalkaan gelinaynaa sida aad wada taqaanaan. dadna USB ayay isticmaalaan. Okay, marka cajalka waan gelinay. hadda cajalkii ayuu noo soo qabanayaa. marka hadda kombiyuutarka cajalka wuu soo qabtay. Okay, inta ku soo qabanaya. Okay, marka cajalka wuu soo qabtay hadda. marka maxaa naga la rabaa? marka wax open aad leedahay iyo ma ahan in kombiyuutarka ayaa restore u diraysaa ama restart waxa la yiraahdo. restart ayaa la yiraahdaa, restore Soomaalidan u taqaano. haddaan nahanay Soomaali waxyaabo bal restore ayaan iska dhahnaa, laakiin waa restart. Okay, restart ayaan u dirnay. kombiyuutarka wuu isdaminaya, wuu soo daaraya. inta waxaa laga rabaa inaad riixdo F12. kombiyuutarada way kala yihiin, wayna kala duwan yihiin. kuwa qaar boodkooda waxaa waaye F1, kuwa qaar boodkooda waxaa waaye F10, kuwa qaarna F9 waaye. boodadka way kala duwan yihiin. hadda kan boodkiisu waxaa waaye waa F12 boot option. marka hadda kombiyuutarka uu qacay, waxaan sameynaynaa hadda boodka hadda inaad ogaatid hadaa rabtid. boodka meelahan ayuu kugu soo qorayaa, kombiyuutarada qaarna meel badan ayuu kusoo qorayaa. Okay, marka haddii boodka aad taqaanid hore waxaad ka riixanaysaa F12. hadda restore noogu dir, restart. marka insha Allah hadda F12 ayaan riixaynaa. markuu kombiyuutarka saas usoo kacayo F12 ayaan riixaynaa ama dhag ayaa siinaysaa ilaa uu boodka uu ku geynayo. marka hard drive CD DVD CD ayaan dooranaynaa anaga. oo DVD cajal ayaa noogu jiro. haddaad USB rabtidna asigana waa gooni, USB ayaad dooran doontaa. hadda waxaa noogu jiro DVD. Okay, marka arrow ayaad ka soconaysaa, arrow ayaad ka bedelaysaa. DVD ayaan dooranaynaa. Okay, enter ayaan leenahay. marka wuxuu kusoo qoray barisaninkey midkaa rabtid, badhamada rabtid ayaad taabanaysaa, midka aad jeceshahay ayaad taabsanaysaa. wax dhiba ma, wax lagu xujeynayna ma aha. hadda astaantan waxaa lagu gartaa window 10ka. window 8 wuu leeyahay, laakiin way kala duwan yihiin gudaha marka lasii aado, laakiin astaantan way isaga eg yihiin. marka hadda kombiyuutarka ayaa noo soo kacaya. Okay, marka hadda kombiyuutarkii noo soo kacay. inta luqadda rabtay ayaad dooranaysaa. luqadda inta koowaad waa English United States, laakiin kuwa hoose ayaad bedeli kartaa oo luqadda aad rabtid ayaad ka dhigan kartaa. Okay, English United States noogu dhaaf. next install now ayaad ku dhufanaysaa. install now markaad ku dhufatid, setup is setting, setup is starting. setup is starting. Okay, marka setup is starting markuu yiraahdo, halkan ayaad aqrinaysaa. Okay, waxba waqtiga yaanan iska luminin. I accept ayaad taabanaysaa. next ayaad leedahay. I accept ayaad check saaraysaa, kadib next ayaad leedahay. custom install Windows ayaad dooranaysaa, aad ku dhufanaysaa. waa kana midda kore waa waxa ka fiican midda hoose. Okay, haddii aad rabto window inaad ka flashtid aad ka dileedid, okay, hard disk ahaan midka hoose waa midka
xogta ay noogu keedsan yihiin. Mid kale waa programyada windowga iyo waxyaabaha badan ay inoogu jiraan. Okay, marka waxaan rabnaa midka kore inaan format gareyno. Okay, marka format aad leedahay windowga hore ayaad ka masaxaysaa iyo programyada hore ayaad ka masaxaysaa. waa muhiim inaad kala garatid C-da iyo D-da inaad kala garatid. labada midka C iyo midka D ah, midka windowga ku jiro kor ayuu maraa. magaca D-da iyo C-da waa laga bedeli karaa. A yaa loo bixin karaa, B yaa loo bixin karaa. Okay, markaas saan aad tiraahdid hadda waad falaashtay, sideed ku ogaan kartaa 119 GB iyo 118.0 marka waa kana marka. Okay, next ayaa leedahay. next markaad tiraahdid copy window files, asiga waa 1 minute, laakiin qaybta labaad daqiiqada aad u badan ayaad qaadanaysaa. 30 minute intaasaa ku qiyaasaa. marka saddexda kala soo hartay macnaa waa waxay 1 minute 2 minute intaas waay ayay ku eg tahay. marka isku soo noqod wanaagsan 1 ilaa 100 intuu ka gaaray. Okay, marka hadduu noo dhameeyey 100 uu buuxsamay, waxaa noo dhaman hadda computerka inuu restart isku diro uuna soo kaco. Okay. intaba hadda waa ka hormari kartaa restart no ama asigaaba isku dirayo, dhib ma lahan. labadaba waa samayn kartaa, ama asiga inuu isku diro ama adiga had hore click aad ka siiso. Okay, computerka restart ayaa isku diray. press any key, waxba ha taaban. press any key uu ku leeyahay, laakiin waxba ha taaban. haddaad taabatid haddii kow ayuu kuusoo bilaabayaa. wixii maantana kusoo daalaysay wuu kuusoo bilaabayaa. marka computerada hadda kan muusa soo qaban, press any key muusa soo qabanin. haddaad press any key taabatid wixii dib ayuu kugu soo celinayaa. marka computerka intuu kasoo kacayaan sugeen hadda. Okay, marka hadda inshallah intuu kasoo kacayaan sugeynaa. window 10 asigaaba hore click, adigoon click siinin asigaa gudbi karo window 7ka. oo hadda intuu kusoo qorayo window 10ka intuu kusoo qorayo waxay kala yihiin windowgii hore uu ku jiray iyo midka hadda aad ku bedelaysid ayay kala yihiin. marka computerka noo soo kacada. Okay, markaan sugeynaa. ilaa 100 uu ka tagay. intaan kale waa bubsiis. Okay, marka hadda computerka ayaa noo soo kacaya. inshallah waqti dheer ayaa galayo, laakiin waqtiga dheerka inshallah video intuu inagu badan lahayay marka waan soo gaagaabinayna inshallah. Okay, marka computerka mar kale ayuu restart isku diray. intaasoo kaliya computerka asiga ismaamulayo ma maamuleysid. asiga ismaamulayo restart asiga isku diray, asaa isku soo kicinayo. restart markuu isku diray asaa soo daarayo. programkii weli meeshiisa ayuu kasii soconayaa. Okay, marka computerka noo soo kacada waa markii labaad uu restart isku dirayo. Okay, hadda marka computerka yaa soo kacayo. Okay, inta markuu soo qabto waxba ka baqin. asigaas jira isla markiiba. sidan hadduu ku yiraahdana waxba ka baqin, asigana asiga la is jarayo. faraha ayaad ka qaadaysaa. sida hadduu ku yiraahdana waa asigana sidoo kale faraha ayaad ka qaadaysaa. Okay, markuu sidan uu soo qabto wuxuu ku weydiinayaa hadda wireless inaad gelisid ayaa laga rabaa. Okay, wireless haddaadan kuusan ku furneynin waa ka gudbi kartaa. Okay, ani waxaan rabaa hadda wireless inaan gashto. Okay, kadibna next ayaa leedahay.
next markaad tirahdid waxaa ku dhufanaysaa halkan using ayaad ku dhufanaysaa just a moment. Okay, marka wax yar ayaan sugaynaa. Okay, hi ayaa lagu yiri, hi ayuu soo qoray. Okay, marka hadda computerkii wuu is diyaarinayaa si uu ku gelin lahay desktopka. Desktopka intuusan tagin waxaa ka horeyso inuu restart isku diro mar kale. Okay, marka just a moment ayuu soo qabtay. Okay, mar kale ayuu restart isku diray markii saddexaad. hadda wuxuu ku geynayaa meeshiisa ayuu kasii wadayaa. Okay, computerka markuu soo kaco wuxuu ku geynayaa waxaa sameysanaysaa hadda computerka ayaa magac u bixinaysaa, password ayaad u sameysanaysaa. Okay, marka labadan option markuu kuu soo saaro ani waxaan dooranayaa kan hoose, kadibna next ayaan leeyahay. Okay, hadda computerka ayaa magac u bixinaynaa. Okay, marka magaca rabtid aad u baxsanaysaa. magacayga ayaan u bixinayaa. Okay, wax baan qalday, cafwan. Password ayaan u sameysanaysaa. Okay, passwordka ayaad gashanaysaa. mar kale ku celi. Okay, marka passwordka maxaa kusoo xasuusan kartaa? waa ka gudbi kartaa midda hoose ama waxaa rabtid macnaha waxa u eg inaad kusoo xasuusatid, ama passwordkaaga halaha ugu horeysa saddexda xaraf ugu horeysa ayaad gelin kartaa, ama saddexda xaraf ugu dambeysa ayaad gelin kartaa. wax problema ma laha, ama waxaa rabtid oo ku xasuusan karta ayaad gelinaysaa. Okay, Maxamuud magaca bihi ayaan geliyay, kadibna next ayaa leedahay. Okay, hadda computerkii uu noo soo kacay. mar kale ayuu hay setting up your apps. wax yar ayaan sugaynaa. in wax yar la sugo ayuu u baahan yahay. qoraalo badan ayuu soo qorayaa. markuu dhameeyo markaas ayuu computerka soo kacayaa. hadda waa last restart. Okay, hadda computerka wuu soo kacay. marka shaashada waxba nooma saarna. my computerkii, control panelkii, networkii iyo way ka baxeen meesha, mana ku jiraan. computerka markii sidan window lagu shubo ma ku jiraan. marka recycle pin oo kaliya ayaa halkan noo yaala. sideen ugu soo dari karaa marka? Okay, meel banana right click ku leedahay. waxa ugu dooranaysaa halka meesha ugu dambeysa ayaa dooranaysaa. Okay, markuu halkan ku geeyo halkan ayaa dooranaysaa. halkan markaad timaadid waxaad dooranaysaa desktop. click ayaa ku siinaysaa. wakan hadda wuu soo baxayaa. marka desktop click ku siisid horuu ka soo baxayaa. Okay, check ayaa saaraysaa computer user files, check ayaa saaraysaa network, control panel, apply, kadibna okay. hadda wuu soo galay. hadda wixii dhan way weyn yihiin. waa weyn waaye sidan yariis aan uga dhigan karnaa.
oo ka yariis mid waxaa jirto asigana aad u sii yareyn karto insha Allah asigana waa idin tusi doonaa. hadda small ayaad ka dhiganaysaa oo keliya click ayaa small ka siinaysaa right kaligaa leedahay view small ayaa ku dhufanaysaa. hadda marka computerkii windowgii waan ku shubnay waan dhameynay. hadda computerkeeni window 10 ayaa noogu jira. fadlan haddaad videoan ka heshay like saar, subscribe na saar, wixii su'aalo aad qabtaanna commentiga noogu soo qora. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.